habeen wanaagsan. Warbixintii hore baan daba joogaa. Waxaan idiin sheegay in waftigii ugu horreeya Soomaaliya muddo dheer kadib ee Addis Ababa tegay iyo dhacdooyinkii ka qabsaday. Waxaan idiin sheegay kulankii Migiso iyo dhexmaray waftiga. Waxaan idinku wargeshay inay dhacdo kale ay jirtay. Tibaan marka caawa inaan falaqeeyo rabaa. Taa intaanan falaqayn waxa ay noqonaysaa waxa ay siinaysaa inaan anigu ma ahayn de dhalinyaradii waddanku uu yaryaraa baan ahayn markuu waddanku burburhayay dugsiga sare dhiganhayay. Aqoon badan oo madaxweynihii maxamed siyaad barre allahu naxariiste ma aysan jirin. waxa ugu badan aan maqlaynana waa ceebihiisa mogta soomaad arag. laakiin qoraallo aan akrinahayay 3 buug oo hadda halkan ii saaran aan idin tusi doono iyo tan aan hadda ka sheekayn doono intuba waxay ku tusahayaan eeda waa jireen ama khaladaad asaga iyo dowladdiisaba laga tirsanayo ama ay galeenba soomaad arag. haddana dhinaca kalena waxaa jiray wax weyn oo ay qabteen baa jiray. labaduba soomaali waa in la isku baalansi garayo soomaad arag. ka soo tog labadaasba mogta shaksiyan dadka ula kulmay ama ay arrimuhu u dhex mareen la fariistay ama la hadlay ama go-aanada qaaska ah oo uu marmar qaato buugtan waa ka wada arkaysaa 3 mid walba waxa uu qoray baan idin tusahayaa. aniga macna ii samaynaysaa oo waayo qof aadan aqoon warbixin lagaaga sheegi jiray qoraalada marka la reebo dadka wax qoraya ama dadka waxaa kuu soo baxaya inaad maskaxda wixii lagu sheegay lagugu shubay ma ahane inaad adigu xisaabtami kadhid mogta fakeri kadhid isweydiin kartid mogta. marka 3 buuggan waxaa la yidhahdaa ciil iyo cafis. waxaa qoray saaxiibkeeda qoray maxamed cabdi cayne. madbacadaydaana daabacday ciid publish baa daabacday. buuggan waxaa qoray maxamed aadan xirsi taar wariyihii weynaaye soomaaliya. anaana madbacadda ciid baana daabacday. buuggan qoraaga weyn baa qoray cabdiqaadir shire faarax madaxafka asna dhowaan buu soo baxay. marka intaanan tii hore aanay idiin gelin 3 sheeko mid walba ku taal baa idin xusaaya. aan maxamed aadan xirsi taar buuggiisa soo qaato kulanka asagay siyaad barre dhex maraya. wuxuu yidhi 1979 baa aniga iyo allahu naxariisto wariyihii weynaa asaguna waa dhintay labadaba allahu naxariisto wariyihii weynaa cuuka iyo asaga iyo teeraba waxa u soo baxay scholarship jarmalka ah. scholarship jarmalka ah markuu u soo baxay wasiirkii xilligaa joogay baa 2 qof oo kale ku bedelay. labadoodiiba way waayeen. waxaa dhacduu yidhi inaan ka xumaanay dacwoonay gudbinay dacwadii markii ay nagu soo laabatay wasiirku wuxuu leeyahay buu yidhi sida teer uu ku qoray buuggiisa weeye. wasiirku wuxuu leeyahay buu yidhi labadaba waxaan ka baqahay haddaan dibadda u diro inay baxsadaan waayo ururadaas jabhadaha ah oo labada iyadoo qabiil loo eegayo inay gelahayaan haddii dibadda loo diro. dhacdadii noocaas ahayd wuxuu maxamed aadan xirsi taar leeyahay waxay gaartay siyaad barre. siyaad barre wasiirku u yeeray wuxuu ku yidhi maxay u dhacday labada nin. wasiirku wuxuu ku yidhi 2 qofba waa 2 qof oo ugu xirfad badnaa wakaaladda wararka Soomaaliya mana cayrin ma dibadda uma diri karno dadka aan u baahannahay inay xirfad soo yeeshaan baan ku bedelay ayaga kama maarna marnaba ma sii dayn karno. cududaarkii madaxweynuhu waa ka aqbalay. labadayadii aniga cuuku noo yeeray labadayadiiba agaasimayaal buu naga dhigay wuuna dallacsiiyey. kuliyaddii saxaafadda waddanka la furayna markaa la furayna labadii qof ugu horreeya lagu bilaabaan ahayn. marka maxay taasi ku tusaysaa mogta shaksiyan sida marka dadka dhibanaha oo dadkiisa ka mid ah oo u imaanaya iyo sida uu iskugu dayahayay inuu xalliyo asagoo usoo dhexgelayay aadii soo gaartay ma garanaysa.
buugga labaad waxaa qoray qoraaga weyn cabdiqaadir farax shire inaa wada akhriseen baan jeclahay. qoraaga wuxuu sheegayaa qiso aada aniga macna ii samaynaysa. qisadu waxay tahay 1988 Oktoobar 14 buu ku qorayaa baan anoo jooga ardaya buu Siyaad Barre wuxuu yimid Nairobi moogta. markaasaan waxaan u tagu yiri hoteelku tagana baan ugu tagay. hoteelka markaan u tagay baan la hadlay bi marka awal inaan arrimo shakhsiyan aan kala hadlaan rabay, laakiin markii dambe waxaan yiri warniyo marxaladda iyo wixii talo aad gudbin ka dhid ma gudbisid moogta. Siyaad Barre markii aan u tagay saf baa loogu jiray waa la ii gudbiyey. markaan la fariisay waxaan u bilaabay yiri sababta aan ugu imid inay tahay talo inaan bixiyo. waa nin dhalinyaro ah soo daabi igu yiri moogta. soo daa markuu yiri waxaan u sheegay saddex marxaladda waddanku marahayo inuu geesinimo looga baahan yahay wixii lagu tilmaami jiray. adigu waxaan soo xusay buu yiri inay shacabka Soomaaliyeed waqti siiyeen ay wax walba ku aamineen hawlkarnimo waxyaabihii oo dhan isku soo qaad. waxaan ku soo duubay buu yiri saddex qodob. saddexda qodob waxa weeyaan madaxweynuhu go'aan geesinimo la qaado, ha ku laaban waddanka, meeshan aad joogtid halkaa uga bax moogta. ciddii ay dooranayaan sida isku maamulahayaan ayaga u taallaa, waddadaa qaad. taas haddaysan ahayn midda labaad aad samayn kartid waxaa weeye waxaad samaysaa u laabo oo waddankii taad ku laabatid wixii adigu aad siday kula ahayd oo aad u wadan jirtay wax u wado waxba waddadaadii hore ku socoo kale ma garanaysa. ama mid saddexaad qaado intaad waddankii ku laabatid isugugu yeer inaad dadkii taladii qayb ka siisid, wixii lagu haysay wax ka bedeshid, wixii aan socon karin aad iska reebtid. dal iyo dad wada socdo xabadda iyo dhiigga min Hargeysa ilaa iyo bahalkii daadanaya sidii loo joojin lahaa. marka intaa dhameeyey waa madaxweynihii wuxuu ninka dhalinyarada u tagay oo hadallada ku oranayo. markaan dhameeyey saddexdii qodob wuxuu igu soo ceshiyo adigu keebaad ii doori lahayd moogta. anigu hadal bay ii samaynaysaa moogtahay, waayo waxaan filahayey marka uu sheegayo inuu oran lahaa intuu gubtay intaan hadlahayey buu yiri albaabka ka baxdan baan ka filahayey moogta. laakiin inuu dhegaysanayay qolku ku dhex soconayo yiri intuu jeebo gacmaha gashado miiska iyo intaan la hadlahayo waa soconayo yiri way dhegaysanayay. 20 minute baan la hadlahayaa buu yiri oo si caada ii dhegaysanaya oo marka uusan dareen bixinayn uusan ka caroonayn oo dhin dhalinyaro oo kuula soo bareeray. marka waxaan ku yiri anigu hadday aad i weydiisay talo waxaan ku siin lahaa tan saddexaad. Soomaad arag waxaana kuugu darayaa reerkaaga iyo qoyskaaga ka saar talada dalka moogta, caruurtaada iyo markaasuu yiri keebaad ka saar ee oran lahayd moogta. caruurta iyo dadka marka maysan kicin dareenkiisa, maysan tusin nin marka aan qiimeeyo aragtida marka la ii sheego qofka dictatorka ama Soomaad arag wiil dhalinyaro oo kuu yimid oo weliba hadallada noocaas weliba qoyskii ka hadlaya markaad aragtid. adigu wuxuu yiri waqtiga anigu fariintan wada waan gaarsiiyey asagoo tan labaad markaan sheego kale wuxuu yiri war haddaan wax walba u dhigno way soo iscuni mahayaan moogta. sidaas u qorayaa moogta. kan cili cafis marka ka waa sidaa weeye waa aragtida marka aniga shakhsiyan aragtida iga soo baxaysa. kan cili cafis maxamed cabdi cayna uu qorayo marka la sii deynayo cafis madaxweynaha lagu sii daayay ayagoo 10 xubnood oo arday macallimiin isugu jiray. waxaa nagu jirtu yiri gabar baa nagu jiray. gabadhu marka intii ay xirnayd ayadoo xuduudu inay tallaabta rabta baa la qabtay. intay xirnayd bay umushay ayada ilmihii baa noloo keenay yiri oo cafiska dadka loo fidiyay ku jirtay. markii sidaa noloo soo gelay madaxweynuhu soo fariisay uu usha sidaa noola raacay buu wuxuu arkay gabadha la socota ragga yagii meesha. markaasuu wuxuu yiri hadalku intuusan furmin gabadha kaxeeya geeya algaabta geeya haddii ay rabto mahbarkii ay u socoto inay aado
way u fasaxan tahay somaad meesha gaariga laga raacay geeya haddii ay rabto mudug iyo meeshii ay ka timidna gaariga u saara wey somaad arag hadday rabto inay ninkeedii maabarka ah ay ka daba tagto waa u fasaxan tahay iyo hadday aadayso labada meeshii doonto u saara wey marka intaansa hadalku noo furin gabadha sidaa ku sameeya ya waxay ku tusaysaa macno kaleay ku tusaysaa mogto ya somaad raggan aan la hadlo ragga markuu nala hadlayna wuxuu yiri wuxuu kala hadlay nimaya waxaad haysataan waddanka sida ugu qabtay ugu shaqeeyey sida ma aragtay uusan uga filayn in ma aragtay ay noqdaan noocaas oo ay soomaad arag asaga wuxuu nagu waxaynayay ragga ma aragtay meelaha ka sheekayo kuwa aqoon-yahanan waxay doorteen biyo dowladda ee caydeeda oo derbiyaday fadhiyaan kuwa wadaniyiina ma aragtay waxay doorteen inay dowladda la shaqaysaan marka labada kaad noqonaysa idinkay jirtaan haddana shaqo iyo waxba idin dhiibi mayna sidii la idinka soo warbixiyo baan idinkula xisaabtamayna haddaad noqotaan kuwa u heelan dalkooda iyo waxqabashadiisaan oo idin soo dhaweynaynaa haddii kalena sidiinaasaad ahaanaysaan mogtay marka waxaad la timaadaan baa wax idinku qaybsanayn marka waxaad ka arkaysaa dadka lagu tirinayo inay cadowga u yihiin iyo siduu ula hadlayo waxaad fiirisaan hadalka maxamed cabdi caynab uu ugu jawaabayo madaxweyneha markuu yiraahdo wal eedda uu madaxweynuhu u sheego eeddii lagu soo eediyey inuu cafis u fidiyey maxamed cabdi caynab kama aamusayo wuxuu leeyahay jaalle madaxweyne weliba madaxweyne jaalle uu leeyahay fiiri jaalle been baa laguu sheegay beenna waa la igu xukumay soomad arag madaxweynihii weye wuxuu ku leeyahay jaalle been baa laguu sheegay beenna waa la igu xukumay madaxweynuhu marka wuxuu ugu jawaabayaa taa ka wada hadli mayna hadda mogta yah soomad arag marka hadalkaasoo kale markuu ku soo dhaco madaxweyne ma aragtay ereygaas markuu ku soo dhaco maxaad ka filan lahayd mogta ya taas weeye tan aan ku qiimeynaya aan leeyahay haddii sida loola hadli karay uu qaadanayo weliba dadka badan oo la fadhiisa waxay leeyihiin badanaa eediisa iyo dhalishiisa waa qaadan jiray mogta wuu dhegeysan jira marka saddexdaas buug iyo hadallada ku qoran iyo hadalka ninkaan iiga sheekeynaya markaan arkay wuxuu yiri teeni baan usoo laabanayna teeni wuxuu yiri ninkii odaga aqoon-yahanka united nation ku shaqeeyahay noo yimid wuxuu yiri niman yahow dhibaataa jirta weliba ninka odaga oo xiran qoyskiisii caruur iyo waxaa xaasiba meeshan u joogay marka dee gacan baa la idinka rabaa dadka idinkaa dowlad u aamogta annaga wuxuu yiri anigay wasiirkii sidaasaan isku fiirin ma ninkii mucaaradka ahaa dowladda soomaaliya la dagaalamahayey iyo qoyskiisiiba la idinku yimid maanta mogta ya weliba waxaa la leeyahay waayo waa meel aanan geli karin buu yiri annagu ya ninkii dee fiirsanaya inuu xilkiisa iyo dantiisa ilaashado haddana dhibaataa jirto qoysku waxba kama gelin annagiibaa wada hadallo iyo fariinta markii naloo soo sheegay aniga wasiirkii khaasatan oo ila tashanaya wuxuu yiri maxaan samaynaa waxaan fiirinay buu yiri marka haddii aan go-aanka qaadano iyo haddii aan la wadaagno madaxweynihii baan isku qabanay ina annagu waxa naloo ku yimid aan dabarno ya si shaqsiya iyo inaan dowladda la wadaagno waxaan soo kordhay mogta wasiirku wuxuu yiri waxba kama qabo madaxweynihii baan toos u wacnay waxaan u sheegnay in halkaani naloo ku yimid ninka odaga uu nooga warkeenay khaasatan qoyskii ninkii ahaa cabdullaahi yuusuf wixii aan ka qaban lahayna dee aday ku jirtaa wuxuu yiri maxaad aniga ii weydiinaysaa waxaad u qaban kardhaan u qabta maxaa ku baxaya waxaan sheegnay buu yiri lacag mogta wuxuu yiri wixii alla wixii ku baxaya ya ay u baahan yihiin bixiya buu yiri hadeertan ninkii baan u yeernay annagoo faraxsan soomad arag wixii odagu noogu dhiibayna meeshii baan ku bixinay soomad arag markaa kadib baa waxaan kusoo laabanay yiri ii sheeg waxaan kusoo laabanay yiri waddankii
safarkayga aan kasoo laabanay wuxuu iigu xujiyey marka agaasimuhu wuxuu iigu xujiyey waxaan la kulanna u yidhi aniga iyo wasiirkiiba cabdullaahi yuusuf moogta ya marka labadayadaba si gaaruu noo soo dhaweeyey labadayadaba si gaaruu abaal noogu hayay soomaad arag weliba intuu xilka qabtayna wada shaqayn baana dhex madhibi ya soomaad arag oo rag ma aragta uu abaal u hayaan ahayn laakiin dee abaalkaasoo dhan wuxuu ku laabanayaa waxaad qiyaastaa waxa weeye madaxweynihii oo la yiri lamber one ninkii cadowgiisa ahaabaa ya baa maanta sidaas taagan mogta oo leh wax walba bixiyahay weydiinina mogta ya marka waxay i baraysaa aniga ma aqaan idinku sidaad ay idin soomaalida u noqon doonto laakiin waxyaabo ka mid a shaksiyan inaan ka barto maxamed siyaad barre mogta ya soomaad arag marka agaasimaha iyo saddexdan buug oo nimankan dhalinyarada waagaas dhalinyaro ahaayeen la kulmay iyo siduu u garab istaagay mid walba kuwa uu cafinahayo kan maaragtay talada bixinayo oo weliba qoyskiisiiyo intuu ka hadlo uu leeyahay haye maxaa ii oran la maxaa iigu dari lahayd intaa maxaa ku dari lahayd soomaad arag marka qisadayadii aan waday maanta halkaanaan ku joojinayaa idinkay idin furan tahay waxay aad ka oranaysaan laakiin qof walba waa inuu maskaxda waxa loo baahan yahay soomaalida waxaa haysata waxaa weeye qiimaynta ma aragta aragtida lagu qiimeeyo ama qabiilka ama war lagu sheegay moogta adoonan baran qofka baarin labadaba soomaad arag marka ma ahan midaan aan wanaag ugu aan leeyahay maxamed siyaad barre oo kale markaan hadda aan usoo qaatay barnaamijkan aan leeyahay sidaas soomaad arag laakiin waxay ku tusaysaa qof walba taariikhdu laba weji bay leedahay soomaad arag wejiyadiisa qaar ka mid ah oo weliba aan naloo sheegin soomaad arag baad ka baranaysaa qoraaladan laga sameeyey ama dhacdooyinkan kaleoo shaksiyan looga soo tobinayo marka intaasaan kusoo gabagabaynaya waxaan ku laaban doonaa barnaamijkan kan xiga xuska iyo dhacdo intuu talyaaniga joogay hadduu ilaa yihahdo maca salaama